maanta waxaan doonayaa inaanu hambalyeeno oona mahad naqno akhyaarta ka soo shaqaysay shirkii Orbogeys degmada Orbogeys ugu horeeyo wasiirka biyaha Mr. Bashe Ali Jama iyo Ali Bashe Maxamed Shire iyo Ismail Abdi Hassan Ismail Dheere oo ah barasaabkii ku-xigeenkii hore ee Sanaag iyo Cuqaasha ayaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa go'aanka fiican ay qaateen inay diiwaangelinta qaataan Somaliland ka qayb galaan diiwaangelinteeda xuquuqdooda muujiyaan muwaadinimo iyagoo waliba shirka u socdana ay haddana Sanaag bari ee koonfurada ay ka socotay ay magaranaysaa diiwaangelinta oo gacanna ku shiriyeen gacanna ay food ku ridiyeen aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxaan hambalyeynaa inaguna dawladdu in roob fiican ka ciyaartay ayaan hambalyeynaa waxaan arkaa inay tahay arrin lagu dayan karo amba ficil lagu dayan karo inkastoo ay ahayd dawladdu intaanay diiwaangelintu bilaabin sidii lagu heshiiyey in deegaamadaas iyo deegaanka Sool in si wada jira wacyigelin cusub oo ka fidsan tii gobolka loo galay maadaama ay tahay markii horeysay ay diiwaangelin ka qayb galiyeen in la qabto oo dawladdu taa ka habsaantay inkastoo ha go'aan qaran oo lagu gaaray xafiiska madaxweynaha lagu gaaray haddana waxaan tahanideynaynaa in shirkaasi shir waxaan ka soo baxay waa shir cadowgeenu ku dhiman doono dadkeenu ku fiixan doono tusisa in Somaliland ha iska jiitan tabe marka dambe meel khayr qabta oo wanaag la isku timaado waxaan markaa iyagana ugu baaqinaa in gobolka Soolna oo ku daydo gobolka Soolna oo ku daydo dawladuna wixii ka dhaafay ee ka habsaamay inay ka qabtaan Sanaag in iyagana ay hadda si magala qarannimo ah looga hawlgalo la hawlgeliyo Cuqaasha Sool sida Cuqaasha iyaguna hambalyeynaa reer Orbogeys ay ugu qayb galeen gacan libax ka qaateen iyaguna waan ka iloobay Cuqaasha reer Orbogeys in Cuqaasha la hawlgeliyo la empower gareeyo inta doorashada aanu bilaabin voter registration waxaan iyagana aad iyo aad u hambalyeynayaa beelihii walaalaha khilaafku ku dhex dhacay magaalada Sool oo iyaguna qaatay inay dagaalkii joojiyaan waxoodii nabad ku dhamaystaan sida caadooyin ahaan jirtay geed hoosti lagu heshiiyo oo inta nool loo taliyo iyagana waan hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa ciidanka qaranka ee Somaliland oo noqday ciidan xitaa ka qayb geli kara United Nations Peacekeeping nabadda si ay uga qabteen ilaa iyo intay ka hawlgaleen Sool Taleex meesha loo jiray magaalada Taleex imakan ay ka hawlgaleen oo rag hubaysan oo qabaa'ila ay soo qabqabteen la keenay laascaad la keenay waa in dadka nabadda ka soo horjeeda la tusaa sharciga oo dawladdu saa yeeshay ay qabataa la xabsiga la keenaan xukuma marka waxa jirta naacaw fiican oo deegaamadaas ku socoto oo wanaagsan ilaahay ugu barna ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigooda isku keen wada hagaajidan reer Somaliland nahay sayna ummad u noqono qarana oo caruurteena ee mustaqbalkooda ka fakarno ayna ka fakirin kursiga aan u adoonayo dadkeena maanta talada haya waa inaan eegnaa boqolkiiba 70 ilaa 50 waa dhalinyaro in mustaqbalkooda ku ciyaarna oo qabiil nabigeena calayhi salaam u fiiri inaan maanta isticmaalna waxay tahay qof kasta camilkiisa raaciye inaan ka shaqeyno weeye marka waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa oo wanaaga jira waxaan jecelahay in lagu daydo tusaale fiican loo baahan noqotay waxaan halka u dhiibayaa Cabdirashiid Xasan Basbaaso oo ah xubin fulinta ka tirsan xusbiga oo ka soo jeeda deegaanka oo isna raggii